munaasabadan oo ahayd mid si rasmi ah loogu dahfurayay laanta magaalada Kismaayo ee jaamacadda Daaha Alcaalamiya ayaa waxay ka qabsoontay Hotel Agan ee magaalada Kismaayo iyadoo ay ka soo qayb galeen furitaanka xarunta cusub ee magaalada Kismaayo ee jaamacadda Daaha Alcaalamiya arday macallimiin maamulayaal iyo xubno ka socda labada gole ee dowlad goboleedka Jubbaland ugu horeyntii ayaa waxaa munaasabada ka hadlay hadal qiimo badan ka soo jeediyay Sheekh Macallin Nuur oo kamid ah culimada diinta magaalada Kismaayo wa ikhwati fillah ujeedadu dadka muslimiinta meesha la isugu keenay laga rabo waa iftaaxa jaamacadaas magaceeda lagu dhawaaqay ee Daaha Alcaalamiya qayb kamid ah oo faraca insha Allah taala in meesha laga furo way markaas taana ilaa waa dareemi karnaa waa waxbarashadu diini iyo maadi way sharci iyo way qayb badan markaas shariicada u adeegta labadaba bay noqonayaan labadaba marka ruuxa muslimkii wuxuu ka dhigi karaa sharci ka dhigi karaa culumto dhan diin iyo maadiga diini baa laga dhigi karaa dhammaan kulli diini bay noqonayaan qaacidadii guud ee marka culimada ay oran jireen wanniyaatu tajcalu alcaadaati cibaadaat maamulaha faraca magaalada Kismaayo ee jaamacadda Daaha Alcaalamiya Macallin Ibraahim Xuseen Cabdi ayaa dhankiisa sheegay magaceedu waa jaamacadda Daaha Alcaalamiya qaybta amlaanta Kismaayo jaamacadan sida aan sheegay jaamacadda Daaha ay muqarrarkeeda xamar ay hoos tagtaa oo qaybo kala duwan ah sidoo kale isla jaamacadan waxay ka dhalatay ama ay sii hoos tagtaa muassasada ballaaran ee u adeegta waxbarashada iyo bulshada muassasatul Kownayn oo ay hoos tagaan macaahid fara badan oo tacliinta iyo adeegga bulshada ku howlan dadaal fara badan ayaa loo soo galay faracan uu ka howlgalo magaalada Kismaayo walillahi alxamdu awwalan wa aakhiran oo lagu guuleystay maantana waxay ka mid tahay jaamacadda diiwaan gashan wasaaradda waxbarashada tacliinta sare ee dowlad goboleedka Jubbaland waxayna haystaa shahaado aqoonsi ah oo jaamacadan ogolaansho ah inay ka howlgasho goboladan mujtamaca ay u adeegto marka dadaalkaas ayaa Ilaahay waa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala kadib waxaa ku mahadsan gudoomiyaha jaamacadda ama muassiska fadiil Sheekh Nuur iyo dadkii kale ee dadaalada ku bixiyay in ay juhuudaas naaficada ah ay ummadda u soo kordhiyaan maamulka guud ee jaamacadda Daaha Alcaalamiya ayaa tilmaamay marxaladii kala duwanaa ay soo martay jaamacadda Daaha iyo haatan xilliga ay marayso waxaan ugu faraxsanahay magaalada Kismaayo xagga tacliinta marxaladda maanta marayso jaamacadkan ma noqon furin inaan dhaqaale ka helo Ilaahay baan arrinta shaahid ka ah waxaan u firay firaaq jiray inay daboosho oo nin walba markii wax walba zaawiya ka banaa shay walba marka uu leeyahay adiga kitaab qoraya intaas oo kutub aan qoray mowduuci ay qoray baad ka qoraysaa aydan waxa laga rabaa wax jadiid la imo waan leeyahay kan haduu dheereeyay oo soo gaabisay waa jadiid marka mid kale waxa way jaanib bahdigaasi aad iyo aad ayay jaamacaddu muhiimad u siinaysaa waxay rabtaa safarta jaamacaddu inay soo saarto jamaaco ahal oo kafaale cilmiya oo sareysa oo awooda inay ka qayb qaadato mas'uuliyadka waddankeena laga saaran marka waxa way saas ayay jaamacaddu rabtaa inay soo saarto jiilkaas maalka ee kafaada cilmiga leh oo ka qayb qaadanaysa mas'uuliyadka diinteena iyo dalkeena iyo eelkeena naga saaran mid kale waxay rabtaa inay ka qayb qaadato inay kor qaado awoodda dadka muassasaadka tacliimiga iyo kuwa wadaniga iyadoo ugu dambeyntii munaasabada soo afmeeray furayna laanta magaalada Kismaayo ee jaamacadda Daaha wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare mudane Axmed Cabdirasaaq Handal inta waxay ii tahay sharaf in aan imaado jaamacaddii toddobaad ee laga furo dowlad goboleedka Jubbaland taasoo runtii muddo 2 sano gudaheed ah ay dhaqan gashay in ay kor u kacdo taabana gasho waxbarashada dowlad goboleedka Jubbaland waxaan bogaadinayaa oo aan kor aad u bogaadinayaa boardka ama mas'uuliyiinta jaamacadda Daaha oo runtii ku soo dhiiraday in ay ka furaan magaalada Kismaayo faracoodii saddexaad ee guud ahaan Soomaaliya laga dhaqan galiyo waxay ahmiyad gaar ah u leedahay jaamacaddan guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ee ku sugan dowlad goboleedka Jubbaland in ay wax ka bartaan
oo ay ku bartaan shareecada islaamka ah aad baad u mahadsantihiin jaamacadda Taaha ee jaamacadda caalamiga ah way inoo daahfuran tahay waxaana ku bogaadinayaa maamulayaashu inay qayb ka ahaadaan inay ardayda ku baraarujiyaan barashada shareeca islaamiya. Cabdicasiis Xaaji Maxamuud Garyaqaan, Kalsan TV, magaalada Kismaayo.